si wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran janaalka Siriicaad meel walba oo aad joogtaan xilli walba ay idin tahay oo wacan halka aad nagala socotaan waa janaalkiina Siriicaad ku soo dhawaada maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantiin sida tixgelinta badan ee aad inoola socotaan waxaan idin leeyahay Jimca Kariim dhamaantiinba waxa aad ku noolataan cizi iyo sharaf maanta waxaan inoo wada hambalyo weyn shalay ayaa waxa dhacay aroos labaad arooskani waa wada naqaanaa waa Muniir Aaqa oo aad wada taqaanaan waxaan leenahay hambalyo hadeenu nahay reer Siriicaad inta samaha u saaxiibka ah amaba samaha jecel haddaba laba arrin oo aad u weyn ayaa meesha iiga soo baxday horta hal mid waa su'aal idinka ayaa idin weydiin doona runtii waxaan rajaynayaa haddii aad iiga runtihiin waad iiga jawaabi doontaan haddii aad ila mid tihiinna waan arki doonaa haddii Ilaahay idmo midna waxa ay tahay mid aad u farxad badan oo runtii in badan ayaa waxa jirtay in la isku xaman jiray in ay liibaan liicato iyo Muniir Aaqa inay ishayeen amaba ay col ahaayeen alxamdulillah maanta waxaanu aragnay iyagoo isgarab taagan isla socdo oo arooska ku midaysan liicatana asbaabta ugu weyn oo u yimid Nairobi waxa uu ku sheegay in ay ahayd in uu ka qayb galo meherka walaalkii Muniir Aaqa aad baan ugu faraxsanahay arrinkaasi horta runtii waxaan doonayaa hal mar muuqaalka dad badan oo hadal ay ka keeneen ayaan doonayaa in yar inaan soo wada daawano waan isku soo laaban doonaa فارح روبلي ومهرها 100 جرام ذهب ونوعه 1 جرام ذهب 100 جرام ذهب ونوعه 21 وهو حال في ذمتك ولها مطالبة منك متى شاءت قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر ياسمين فارح روبلي ماركيد ليهي 100 جرام ذهب نوعي سليهي لباتن يكون عن وكالتي وكيلكي وليدي كولا نكاحي وافضل sida aad dhamaantiin ma soo wada daawateen dadka qaar ayaa waxa ay hadal ka keeneen ama ay yiraahdeen meheradan inta dambe hadda soo ifbaxay ee lacagta ziyaadada ah lagu mehersanayo gabadha waxay dhaheen ma ahan wax fiican yaani waxay dhaheen waa iska fan laakiin arrinkaas ayaa doonaya inaan hal mid ka yiraahdo su'aashaan idin weydiin rabana waa idin dambeysinayaa ta kaleete farxadda lahaydna tii liicatay ahayd arrinkan meherka ayaan ku sheegayaa gabar malaayiin iyo bilaayiin ku soo baxday oo loo soo dhiday ayaa lagu siinayaa waana lagu gudoonsiinayaa marka waa ay u qalantaa waxaan yar ee aad ka fikiraysaan ee ah dahabkan 100 gram iska daaya 1 gram oo dahab ah way ka qiimo badan waayo waqti ayaa soo galay aaba ayaa u soo dhiday hooyo ayaa u soo dhiday waa la soo barbaariyay waxba la soo tacliin baray tacliinteedo kaliya hadii la isku geeyo inta aad dhiibaysid ama meherka u dhiibaysid 1 jeer ayay ka badan tahay iska daa waxaanay ku dhalaysaba marka Soomaaliya waxaan leeyahay iimaanka sugta waxaan la bixinayo wax weyn maaha waa wax yar oo kamid ah gabadhaas nolosheedii oo iyada ay hadhow heli doonto mooyaane wax aad bixisay ama wax aad iibsatay ma leh maanta qofka ugu yar ee warshad amaba ganacsi furo isdhahayo lacag fara badan ayuu galiyaa isagoo og inuu yaani qasaari karo oo faa'iidi karo laakiin qof dhan ayaa nafteeda waxa ay diyaar u tahay in ay ka dhigto qof jiro oo dadka ka dhex muuqdo waxay kaloo diyaar ay u tahay in ay ku siiso hadiyad qaali ah oo aadan malaayiin dollar aadan ku helin marka way u qalmaan meherkaasina waxaan leeyahay sida uu ugu dhacay insha Allah arooskaaga iyo qurux Allah kaaga dhigo Muniir nolosha inta dambe oo dhan waxaan doonayaa marka su'aashan idin weydiin rabo oo maskaxda iga taagan ayaa waxa ay tahay xilliga oo Malaysia joogay Muniir maxaas buu lahaa oo macna uu guursanaa miyay ahayd mise wuu guursaday ayay ahayd xilli ilaa hadda taa isweydiiyo waa taas haddii aad iga aqoon tahay xagga commentiga ayaad noogu reebi doontaa markaas miyuu guursaday mise meherkan maanta dhacay un dabaaldegiisa ayaan sii qaadanayna marka uu Malaysia joogay intaasna idinka ayaa iiga jawaabi doono laakiin waxaan leeyahay Muniir Aaqa oo runtii aad iyo aad isku xaafadan ahayn xitaa ninkaasi
iyo Shukri Masalla oo ah qof aad u ixtiraam badan oo aan xishmad weyn u hayo iyadana aan isku xaafad ahayn liicaata maan is aqaanin iyo dhammaan familka uu ka soo jeedo Munir waxaan dhammaan idin leeyahay hambalyo gaar ahaan Munir Aaqa waxaan aad kaaga hambalyeynaya ama waan kugu hambalyeynaya arooskaaga cusub waxaana Ilaahay ka rajeynayaa inuu guurkaaga noqdo mid aad ku baraarto aad ku degto Nairobi marba meel ayaa loo rarayaa mar waxaa ogeyn in ay magaalada Jigjiga iska daba qabatay aroos hadda waa la raray Kenya ayaa hadana Nairobi ayay ka shidan tahay aroos oo arooskii qarniga ayaa daraad waxaa dhigtay Zaki iyo ninka odaga ahaa Zaki iyo xaajidiisa Sahra maantana waxa weeyaan Munir iyo Yasmin hadana waxa kale oo ku sugan lamaanayaal iyagana sidaas ugu sii fogeen oo ka soo dhacay Jigjiga arooskoodii liicaato iyo xaajidiisa Sumaya oo runtii iyagana ku sugan magaalada Nairobi waxa kale oo runtii isweydiinayay ilaa iyo xagee ku aragtay wiilka kale Zaki lahay ee guursanay show waa ninka riwaayada kula matalay in xaaskiisa ay tahay Sumaya waxaan idin leeyahay dhamaantii bareer Nairobi sanadkan waa sanadkii 2021 wacdara adag waxa arooska ka dhigay qaybtan Jigjiga maanta oo 22 lagu jirana waxa wacdaraha haysto ama iskoorkaasi oo u xiran yahay xagga arooska amaba aroosyada quruxda badan magaalada Nairobi waxaan mar walba aan aad ugu faraxsanahay horta dadka Soomaaliyeed ee maanta isgarab taagan arooskii daratul lacay sidaad ka wada warhaysiin hal aroos ayaa ka fanaaniin badnaa hal arooskaasna arooskii labaad ayuu noqday ee ugu fanaaniinta badnaa arooska Cawaale ayuu ahaa oo fanaaniin aad u fara badan kulmiyay arooskaasna waxa ka sii fanaaniin batay arooskii dhacay Nairobi ka dhacay ee Zaki marka waxaan leeyahay maanta waxa moodaa in aad la isku soo fahmayo fanaaniinta xataa liicata habeenkaas fanaan ahaa Allah waxa dhacda inta badan hadda Soomaalidu waxa moodaa inuu qariibiyadooda isku soo yara dhow yihiin oo dadka ay isfahmayaan marka hore fanaaniintiina in badan iyagoo meel isugu imaadaan way adkaan jirtay oo macnaha meel badan ka yimaadaan ay ka kala yimaadaan laakiin hadda dad badan iyo fanaaniin badan ayaa isugu imaanaya aroos qura markaas waxa ay ku wada waqti qaadanayaan farxad walow in yar oo buuqa arooskaasi oo ka dhacay laakiin haddana okay waa si qurux badan ayuu u qabsamay waxa aad ugu sii faraxsanahay arooskii ka dambeeyay Munir Aaqa waxaan ku leeyahay walaalkay guurka aad arkaysaan adkaysi sabar ayuu u baahan yahay noloshana ma aha wax xun dadka qaar wax xun ayay ka dhigaan inuu guurka xun yahay oo fool xun yahay oo dhibaato badan yahay oo qaxar badan yahay oo nolosha culays ku soo fuulay sax weeyaa qof dhan ayaa mas'uuliyadda soo qaaday waxaana loo baahan yahay si jilicsan oo degan oo ragnimo leh in ula dhaqantid qofka noloshaada ku soo biiray weliga Allahana dadka warkoodii hadii waa dhageysana tiraadid talooyin gurigaaga oo ku burburi kara ku siinayaan marka isku day mar walba in maskaxdaadii saaxiibka dhow aad ka dhigatid xaajiyadaadana waa qofka kale ee maskaxda Ilaahay kugu soo buuxinay weeyaan marka waxaan rajeynayaa intii guursateen iyaga isfahmi doonaan inta hadda maanta carcar ku jirto oo diyaar garoobaysan waxaan idin leeyahay si qurux badan guurkiina iyo gurigiina Allah idin kugu dhiso maanta waa Jimce waxaan u duceynaynaa dhammaan aroosyadaasi Ilaahay isku nageeyo oo hay ubad khayr qaba kala siiyo aad baad u mahadsantahay reer Sariicad idinkana su'aasheeda iga soo jawaaba Munir hore ma u guursanayay mise maanta la guurkiisa uu yahay aad baad u mahadsantiin intaan muuqaalkan mid xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagay fi amaanillah isaar dambo xiisa leh